wamaa yakfaa cala allah ilaahay dushiisa kama qarsoona alla kama qarsoomaya min shayin waxba fi lardi walaa fi samaa alla waxa uu xusaya haddaba ambiyada waa wanaagsan ammaanadii si fiican u gutay nafiya maalba u huray ee tusaalaha ummadda waxa ka mida nabiyullaahi ibraahim dadkii mu'miniintahana islaan iskama sheeganayaan iyagu way yihiine dee nebi ibraahim ayaa qur-aankoodii uu ka warramaya qur-aankooda uu ku guubaabinaya dabeetana ibraahim yuu yahay maxaase tilmaamihiisu ahaayeen cideebaase u nisbo sheegan karta maxaa dhaxaluhu ka tegay aahaartiisi iyo raadkiisi yay ahaayeen maxay ahaayeen ibraahim baa markaa maahiyadiisi iyo xaqiiqadiisi ilaahay buu soo dhigayaaba dabeedna waxa muuqanaysa kuwa waafaqsan inay yihiin dadka muslimiinta ah macnaheeduna markaa waxa weeyaan cid kale uma atirsan karto وإذ وقت حسب تلا إبراهيم ربه إبراهيم ربك امتحانا بكلمات بكو امتحانا وحيابا وأمري وحيابو النبي إبراهيم إلى هاي فري كلمات كسوى أوامر ابتلاه بأوامر أوامر تساد وبضني كون صوص على كمذا كعبدا إنو دسو إنو إهل كيس هلكا دجيا وكتغو إنو إنن كيس قورعو إنو إساقيا وين ونو وينو وضايا جاي اسكودو وخصال الفطرة ولي مادو inuu markaa dee ummadda kifaax iyo jihaad la galo aabihii uu horkacayo ee markaa kufriga soo duubatay waxaasoo dhan uu ka soo baxay go-aankiisina wuxuu noqday faatamahun uu dhamaystiray halkay kuwani mukhaalifiinta ka yihiin wa ibraahim aladii wafaa markaa nabi ibraahim aragto iyo sida uu markaa tadxiyada u sameeyey nafti huranimada diinta ilaahay ee naf iyo maal iyo ehelba u bixiyey adigana waxa kula gudban ku dayash وسودادغو waxa uu ilaahay soo cabanaya rabbana ilaahay yagiyow inni askantu anigu waxaan dajiyay min durriyati ubadkayga qaar kamida biwaadin meel dooxa غayri dhi zar'in oo firi ka baxaysa iyo raashin ka baxaana aanu jirin baxaaskiisi aajara ama haajara labada waa la yiraahdaa iyo ismaaciil nabi ismaaciilna waa mujayar oo islaamtu shaqaya labadoodaas soo waalido ilaahay amray halka kacbada إنك أيتها أو سمسم كلها كعبادنا الاثنين بودجاي برتا بنان أيو دجاي ماشى ومالس كدوحها قرفاء ساو شجعة ده أيتها أو مكي يقف كاركيون باركي ومالس كبوره بمدوي هنا ودادري هنا جد ده هرعها كبحية يمال قد الحسية ترى ما سننا هذا نيسوم لنا وليه إلهي دعاء وحسوت يدل يا نبي إبراهيم مركو هالكلام بدو دجاي ودقاتشي kolkaas islaamti ka daba dhaqaaqdayba ilmihi yaraana meel halkeeda waa ka haya waxa ay tiri xageed qawateen laga tagtay iskaamus dana jawaab ma hadana way si daba dhaqaaqdo xageed u dhaqaajis dhowr jeer markay ku celis ayay tiri ma ilaahay baa ku amray intaad halkan la dhigto inaad naga dhaqaajiso markaas uu yiraahdo kolka waxay tiri islaan ajab badan baa haydo jahataana dayici maayo ilaahay way ku kalsoon odaygina si aan ugu kalsoonayn ayay ilaahay u kalsoon kolkaasuu dabeedna iska dhaqaajiyay buurtaasuu soo fuulay kolkaa dheer iyagiina dib buu soo eegay kolkaasuu leeyahay rabbanaa innii askantu min durriyatii biwaadin ducadaasuu akhriyay marka isagoo tilmaamaya inuu ilaahay diin iyo dunyaba siiyo wuxuu laakiin ku nuuxnuuxsanayaa waxa weeye inuu ilaahay siiyo diin wanaagsan inuu siiyo saa dee kaaga muuqanaya alxamdu lilah waa duco ka soo go-aysa qalbi daacadnimo ay ku jirto سيدي تأثيرك أولا بي السامين فاسو إلهي وبريه رب اجعلني إلهي وإذي المقيم الصلاة عبادة مد أوغا ومن ذريتي أبتك إغنى إلهي وعبادة كو أوغا أوهي لنا الله كدك ربنا يا ربنا إليك ربنا ربي أصنق بقنا يا وحط السنة تواضع عيسى يستلق وآدي ربلا وانا صدبها الدعاء لغو أقبل وتقبل دعاء إلهي الدعاء إذا أقبل wuxuu ka warramay xigmadiisa aadka u qiimaha badan iyo cilmigiisa xeesha dheer ee la xiriira abuurka asalkeennii aadam abulbashar iyo halkuu ilaahay ka abuuray inuu isagoodaa waxa ka soo bixi doonay arrin dheeraadahoo aynaan ogeyn baa aqoontiisa laynoo soo gudbinaya walaqad khalaqnaa waanu abuurnay baa ilaahay uli alinsaana bani aadam ayaanu abuurnay min salsaalin min xamain masnuunin بابا مقالبة عليه أما سلاو كلا تدوان من صلصال من طين صلصال بابا قوالان من حماء
mid madow ka timi masnuunin isbedeshay oo salsaalku waa dhooba sanqalays xamuuna waa marka ay isbedesho dhoobadaas xagga midab ahaan masnuunkuna waa inay ur leedo kolkaas qur-aanku wuxuu tilmaamay turaab qiin salsaal xama intaba waa tilmaamay waa marxalado uu maray aadam markii la abuurayay turaab buu ahaa ciid iska qalalan dabeetana waa la qooyo qiin buu noqday markaasaa muddo la dhigay kolkaasay noqotay dhoobo xama oo madow oo urteeduna isbedeshay ilaa jir iyo dhiig baa ka soo socda meesha ah muddo kadib baa haddana la engejiyo salsaal bay noqoto ruuxdiida kadib lagu afuufo wakhtiyaashaas wakhtigu ilaahay sheegay hal ataa cala linsaani xiinun min addahri lam yakun shay-an madkuura waxaa aadam soo maray wakhti aanu haynba wax la sheegaba wakhtiyaashan la cajiimayo waljaannaka jaanka la yidhaahdo khalaqnaahu waanu abuuray min qablu aadam ka hor min naari samuum naar holcaysa jaankaasi waa aabihii ibliis ama waa ibliiska laftiisii magac kaluu leeyahy marka naar holcaysa samuum naar khafiifa baa laga abuuray malaa'igtana nuur baa laga abuuray bal saddexdaa khalqi adigu isu eeg midkaasi waa dhoobada noocaasee radsan waa ka meeshan loo xil saaray haddana inuu camiro midkanina waa nuurkan midkanina waa naartan midkan nuurka ahi khayr buu la nuurayaa kan naartiina khayr buu la ololayaa kan u dhexeeyaana waa dhankuu leexdown inuu nuuro iyo inuu naarmo oo labadaa miduun dee bani aadamkan udhexe aadamahan udhexeeya waid waqti xus nabi maxamedow qaala rabbuka ilaahaagu ku yidhi lilmalaa'ikati buu ku yidhi innii khaaliqun basharan jir baan abuurayaa min salsaalin min xama'in masnuunin baan jirka abuurayaa waa jirkaa maanta aynu leenahay baa dhoobada noocaasa laga abuuray alla wuxuu yidhi isagoo malaa'igtii la hadlaya fa idaa sawaytuhu marka aan isku simo wa nafaktu fiihi min ruuxi ruuxdaydana aan ku afuufo sawaytuhu markaan jirkiisa dhammaystiro ee ruuxdana ku afuufo waa uma anshaanaahu khalqan aakhar waa abuur kale faqacuu dhaca lahu isaga saajidiin idinka u sujuudaya qacuu haddii la yidhi faqacuu macnaha waa in fooda la dhigo qowlka odhanayo foorarsada baa la yidhaha meesha ka baxaya haddii la yidhaha hala dhaco macnaheedu waa in la foorsaday sujuuddaasi mid cibaado mahayna mid ikraam iyo ixtiraam bay ahayd malaa'igtana kolkuu ilaahay saa u tilmaamay inuu basharka abuurayo waa cilmi uu kordhinayo iyo amarkan si ay u qaataan fasajada almalaa'ikatu kulluhum ajmacuun malaa'igtii say u dhammaayeen iyagoon kala hadhin way sujuudeen sida mudakarkay u sujuudeen kulluhum ajmacuun ayaa intaba sii akidaya ilaa ibliisa midka la idhaahdo mooyaane oo isaguna dee aan ka mid ahayna meelahan uun taagtaagnaa abaa wuu diiday an yakuuna maca saajidiin kuwa sujuudaya inuu raaciyo wuu diiday macnaa cadaawaddu halkay ka soo bilaabantay baaba laguu sharxayaa ilaa waxaa taariikhda la idhaahdaa wax badan ayuu ku bari karaa marka isaguna malaa'igta kama mid ahayn maadaam dee la yidhi markiisa horeba jaam baa uu ahaa maadaam la yidhi dee abuurkoodii baa kala duwan qaala markaa ilaahay baa yidhi yaa ibliisu maa laka maxaa kugu dhacay ee kuu diiday maa laka anlaa takuuna maca saajidiin maa laka ayu shayin habata lak wayamnacuk an takuuna maca saajidiin maxaa kaa joojiyay inaad sujuuddo kuwa malaa'igta aad raaciso qaala lamaa kun buu mayhi liasjuda mid sujuudaya libasharin khalaqtahu jid aad ka abuurtay min salsaalin min xama'in masnuunin ooba waxaasoo dhan ah midka anugu lagama yaaba buui layguma hadlaya kaa sujuuddiisa mid kaloo sujuudi waayo salaada tukan waayo ama ha isreer magaaleeyo ama gaalada ha ku daydo ama ha isxariifiye noocan unbuu leeyahy qofka aan ilaahay u sujuudayna muslim sheeganaya waa kanun muuqaalkiisu waa ka qaala markaa waxau ihi fakhruj minhaa ka bax malaa'igta fa innaka rajiimun waa lagu fogeeyey arrinku halkaasuu ku dhacay wa inna calayka dushaaday ahaatee allacnata cadho alleh ilaa yawmi ddiin ilaa maalinka khalqiga ilaahay u abaalmarinayo oo naar dee lagu turi doono cadhadaas way ku haysata dabeetana wuxuu arkay inuu guuldaraystay oo wuxuu isinuun haddaba rakaad samayso towbadkeen iyo waxaasi ma jiro oo dee taladiisaasay ku dhammaatee wuxuu isku dayay haddii aad jabto in la wada jabo ma jeceshahay buu ka duulay qaala markaa waxau ihi rabbi ilaahaygiiyow faandirnii ii kaadi ilaa yawmi yubcathuuna ilaa maalinka lasoo noolaynaya dadka kuwa hore dhimanaya ha igu darina iga daa qaala wuxuu ihi fa innaka adigu min almundariina kuwa loo kaadinayaa tahay ilaa yawmi alwaqti almacluum ilaa maalinka ama waktiga la yaqaano waktiga cayiman ee la og yahay
عند الله كعي مروءة مركة لقوا الصلابين دون جنية إنسبا وقت قاو راعية انت ورجلي كمي منيس قال مركة دبدنا وحلو كلكو تايسكوه صدى رب باب الليل مركة بني آدم كي دركة دلابة جيرو ودايقو ربنا آل هاي قار صومي يصبحين للرب ما جيرو wax rabbi la ilaahay jira wax waliba dabeecadun baa saatid ibliis way ka sii shisheeyeen isagu rabbi baabu leey qaala wuxuu ilaahay bima aqwaytani am bintaadi am bisay sababteeda law zayyana lahum fil ard dhulkaan u qurxin doona wala uqwiyannahum ajma'in dhammaantood waan bin doona ilaa cibaadaka adoomahaaga mooyaane adoomahaaga soo minhum kamida ilma bani aadam adoomaha al mukhlasiina lahu fay إلا هذه حمامته كيرتها يكوه جانسا كوا مويان بلان تاسو دا يساقنا قاضي متكا يساقا إبليس لا إلادا لو زينا اللهم في الأرض مركا يشرح أيان علماء المفسرين تهور وحي إليه دولك أيا آنيدين قرحين دونا أبور إبليس كيو مع السيادة دولك دحديث إيا شهواتك إيا نعمة اللهم بانيدين قرحين وآخرة إيا جنة إيا إيدي كل لاوي دون لكن وحي إنك أركينا دولك لفتيسي وهو ديدتك لو قرحي oo barigi hore waxa la isku hadaari jiray ciid daacun laakiin ciidda lafteedii baa la isku laayayba oo dhulkii baa dadkii loo qurxiyay markaas lagu waashay oo halkii geeli la kala qaadi jiray isagii baa bedelay kullu dhalik waa ballantii shaytaanku uu qaaday dadka inooga muuqanaysa marka aayadda daahirkeeda un la eego dhulka baan u qurxin doonaa dadkii waa lagu dhigi oo dirham iyo danaaniir bayadun baa laga raadin doonaa marka halkan waxa waa burushkii shaytaanku mariyaa muuqanaya قال دبنا إلهي وحول هذا كاس صراط جدوي علي مستقيم هذا صراط كاسوا وضع مستقيم توصا علي إلي حقا يا هذا معناها إن أي كابت بادان أضمها مخلصين تاهي ومد أن بلن قاضي أما هذا هنون كأي هلان تدكا مخلصين تاهي وشي توصا أو أنيق أطونك يسوق جرسيني أما هذا إخلاص كاس daacadnimada noocaasi waa jid toosan oo aniga isoo gaarsiiyay adooma marka islaamnimada iyo iimaanka ay ku hanuuneen mukhlasiinta si ibliis kaga hareen ayuu siraad mustaqim tilmaamaya wa kaanu ilaahay bariyayna lana ihdina siraad almustaqim ragcad walba inna ibadi ba ilaahay wada adoomahayga laysa laka kuma sugnaanin calayhim dushooda sultaanu nawad kumalihid madriqi karti إلا من مدن بس كجوريسن دونتا اتباع كم راعي من الغاوين كوا أنبضايا الضوما هي جانا كاهري دورة كأنبضايا هذا يقانا إك حيس وإن جهنم النار تلي هذا لموعدهم أجمعين وهل كانوا يبغى هاي سيودين أجمعين ده الضوما هذا معه لكن أجمعين الغاوين هو هلا وصند مانت لها وحى إلا هذا النار تاسي 7 أبواب تدبأ الباب أي إلا هذا أما تدبأ طبقات دركات نعوذ بالله منها لكل باب الباب والبوحة أصغنا ذي جزء مقسوم منهم جزء مقسوم غير عيما ومنهم قال كمذا أما منهم غاوين تكمذا كوان بري كمذا الباب والباء واكل سنتين يقول أبو هربي قارسي سنتهاي مركا غير عيما الباب والباء كقرا أقول لك قلين دورة ضد قاره المبني آدم كاو فضود كوا ده مسلمين تاعه مركا إلهي وكلا فوائد بقية معصية قالنا حمان تودو برطي كاو هو سيرى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار